hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed ayaa maanta qabatay munaasabada lagu wareejinayay deeq lacageed oo gaaraysa 14,400 oo doolarka Mareykanka oo ay iska soo ururiyeen shaqaalaha hay-adda laguna wareejiyay dhalinyarada ururka daryeel bulsho oo ah urur si firfircoon uga shaqeeya gurmadka abaaraha iyo caawinta dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xilliyada adag. Lacagtan ayaa loogu talagalay in lagu gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen biyo, cunto iyo gargaar degdeg ah. Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo ka qayb galay munaasabada, ayaa booriyay in ay muhiim tahay in ummadda Soomaaliyeed iscaawiso oo ay isku garab istaagto marka ay timaado xaaladaha adag sida abaaraha. Waxaan aad iyo aad runtii uga bogaadinayaa dhammaantiin tilaabadan fiican oo wanaagsan oo ku dayashada mudan oo ah in dadka loo gurmado oo dadka wax lagu biiriyo ayadoo shaqadiinii leedii idmada ay haysaan in midda qaranka iyo ummadda iyo dareenka bulshada loo soo jeesto waa tilaabo fiican, waa dareen fiican. Marka madaxda idinku baraarujisay ama idinku abaabushay waa mahadsan yihiin. Sidoo kale dhalinyarada soo gurmaday oo dadaalaya oo dadka baraarujinaya oo idin yimid oo mawduuc idinku soo qaaday ayaga runtii waa mahadsan yihiin. Ilaahi subxaanahu watacaala dadku inay isbaraarujiyaan, iskaalmeeyaan ayuu u jeediyay, gaar ahaan dadka mu'miniinta ah. Wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala: laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. dadku way faqaan intaas. Si haddii Soomaali leeyahay shirar baa arkaysaa sida magaaladeena Muqdisho oo anigu aan idhaaho koonfurta Soomaaliya wixii cadow ay lahayd Soomaaliya iyo wixii cudur ay lahayd Soomaaliya ba koonfurta yaalla taqriiban sida magaaladan. Marka intaa shir laga bixin maayo, laakiin shirkan waa shir maartaan shirka marka qiimaha leh oo Ilaahay ammaanayo waa shirka dadka maslaxadooda laga sheekeynayo caamka weey. shiradan gaara iyo qabiil iyo diintu ma ammaanayso. Marka inaad ka shirteen waxa noocaas oo runtii laga shiro in waxa la sadaqaysto, dadka macruuf la furo, dad iskhilaafsan la heshiisiyo, in danta caamka loo istaago wax sahlan maaha. Dhankiisa gudoomiyaha dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cali Siyaad oo hogaaminayo gurmadka abaaraha ee daryeel bulsho ayaa sheegay in hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ay noqotay hay-ad dowladeed ee ugu horeysay ee ka soo jawaabta baaqooda gurmadka, isagoo uga mahad celiyay dareenka iyo kaalinta ay qaateen shaqaalaha hay-adda. maantana waxaan joognaa hay-adda ugu horeysay ama dowladda dhankeeda hay-adda ugu wanayd oo runtii garab istaag noo muujiyeen iyo dhiirigelin. agaasi Mustafa Raan halkan aan si gaar ah ugu mahad celino uguna duceynay shaqaalaha guud ahaan gurmadka abaaraha shaqaana u istaagnay maadaama dalka xaalad adag ku jiro. waxa kaliya gudoomiye uma istaagan, waxa uu istaagay dhalinyarada aragtaan oo shaqadooda ka soo tagay oo waqtigooda u hore oo naftooda u hore. si lamid ah waxa garab u noqday bulshada haddii dowladda qaybadeeda kala duwan iyo hay-adda. dadaalada maalmahan aan wadnay waxaan oo qabsoomay in aan gobolka Hiiraan aan ka sameey raashin iyo biyo dhaamin dadka ummadna la gaarsiiyo. gobolka Galgaduud inaan gaarsiiyo raashin iyo biyo dhaamin sidoo kale aan ka sameeyno. maanta shalayna waxaan u dirnay gobolka Gado oo ugu daran meesha ugu daran oo dadka ay ku dhimanayaan oo si lagu sheegay 9 caruur inay caafimaad darro u dhinteen, sidoo kale 15 caruur ay u dhinteen biyo la'aan iyo raashin la'aan. waana meesha ugu daran gobolka Gado. sidoo kale waxaan oo qorshaysan inaan gaarsiino gobolka Baay iyo Bakool ama Beedhabo meesha ugu daran ayna taqriibadeeda noola sheegay. sidoo kale Cismaan Maxudiin Shaatax, gudoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ayaa muujiyay mahad celin balaaran oo uu u jeediyay hay-adda, isagoo tilmaamay in tallaabadani ay tahay mid dhiirigelin u noqon karta hay-adaha kale si ay uga qayb qaataan gurmadka abaaraha. maanta halkan waxaan ku faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaano fariin annagoo dhan ugu wada socoto oo hay-adaha dowladda oo dhan ku socoto, bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ku socoto, oo ah gurmadka abaaraha. waxaan runtii u mahad celinaa hay-adda daryeel bulsho oo runtii sida hadda noo sheegay iyo intaan ka ognahayba wax badan usoo taagneed gargaarka dadka, maantana suurtagal ka dhigtay in ay hay-adda socdaalka u bilowdo sidii looga jawaabi lahaa abaaraha.
waxaan aaminsannahay abaaraha sanadkan sidii abaarihii hore looga jawaabi jiray looga jawaabin oo runtii aysan naqan sidii mudneed inaan wax loogu qaban balse hadda waxaan ku faraxsanahay in weli ay jirto niyad wanaag oo dadka Soomaaliyeed ay rabaan inay gargaaraan hay'adda daryeelka bulshada waxaan aad ugu sii dhiirigelinayaa in markastaba sida hadda nolosha ay ku tashanayaan dadka Soomaaliyeed waa ka qiimo badan tahay gargaar ka imaanaya gudaha gargaar ka imaanaya dibadda aad ugu qiimo badan yahay maxaa yeelay gargaarka dibadda ka yimaado ma yimaado waqtiga loogu baahnaa kuma soo aado waqtiga baahida ay jirto wuxuu ku soo aado inta badan waqti baahida laga gudbay laakiin gargaarka ka imaanaya gudaha dalka wuxuu markastaba ka jawaabaa sida uu dhaqsiyaha badan baahida markaas taagan marka runtii inay arrintaas ay diiradda saaraan inay gudaha xoogga saaraan oo arrin ku dhiirigelinayo bulshada rayidka daan nahayn waxaan rabnaa inaan arrintaas kala shaqeyno horena ugu shaqeyn jiray arrimaha laakiin hadda inaan rabbi talaabada qaadeen inaan xoogga saarno ugu dambeyn agaasimaha guud ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda mudane Mustafa Dhuxlow ayaa ku dhiirigeliyay dhalinyarada Soomaaliyeed in ay sii wadaan doorkooda ku aadan howlaha samafalka iyo taageeridda bulshada waxa uu sidoo kale sheegay inay tahay wax laga naxo in maanta ay jiraan dad Soomaaliyeed oo biyo la'aan u dhimanaya isagoo carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in dadka Soomaaliyeed ay qaataan mas'uuliyadda ka saaran garab istaagga walaalahooda ay abaaruhu saameeyeen isla markaana ay xoojiyaan dadaalada gurmadka. saaga runtii waxay noo tahay farxad sababtuna waxay tahay waxaan runtii muujinay dadaal inkastoo meesha aan rabnay aanan gaarin haddana wax baan isku daynay waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa ilaahay maaragtay subxaana wa tacaala na waafajiyey intaa kadibna waxaan u mahadcelinayaa runtii dhalinyarada daryeel bulsho sababtuna waxay tahay iyagaa noo yimid xafiiska noogu yimid nala fariistay waxay noo sharxeen baahida dalka jirta annaga wax la socono biyo la'aan dalka jirta sida volunteerka ay habeen maalin ugu taageerayeen dalka ay dadka u shaqeynayaan iyagana runtii waxaa lagu ammaanay dadaal iyo ammaano dadaalku waa muhiim oo waa wax lagu keeno ammaanaduna waxaa waaye waxay u sii muhiimsan tahay xag ilaahay iyo xag kale bini aadamka xataa inaad sii shaqaysid reference ay kuu tahay marka waa dhiirigelin runtii dhalinyarada daryeel bulsho sababta waxay muujiyeen dadaal laga rabay dad ayaga ka madaxsan ama runtii position ka haysta dawladda maanta ama bulshada dhexdeedaba sidoo kale waxaan runtii mahadcelinayaa Sheekh Bashiir iyo gudoomiyaha Shaatax sababta waxay tahay markasta u baahan waa helnaa daqadaan u baahan noo yimaadeen marka waana waajib runtii dadka saarna arintaano waa u mahadcelinayaa sidoo kale shaqaalaha hay'adda oo aan dareensanahay culaysyada iska jira laakiin waxa walba ka muhiimsanahay abaabulka iyo dadaalka iyo dhiiranaashada badanaa kreditka dadka madaxda iska qaata laakiin shaqada waxa soo qabta dad kale marka idinka waa idin mahadcelinaa intaa kadib horta arrintan waa arrin waajib oo hor saaran dadka Soomaaliyeedna duruufo fara badan iska haysta oo runtii aad u badan inkastoo aan iska imtixaanana sababta resourceska wadankeenu leeyahay iyo in biyo aan maanta nagu dhacdo runtii waxaan mas'uuliyaddeeda qaybaan ka nahay sababta waxay tahay dagaal sukeeye annaga wadna qaybaan ka nahay in laga gudbi waayo qaybaan ka nahay in dawladnimada la gaarsiiyo meesha rabta qaybaan ka nahay in dawladnimada xataa aan ku dhiiraweyno mararka qaar inaan gaarsiino meesha rabno si dadkeenu ay helaan basic life-ka runtii anaga waajibna saaran waaye. Zikriya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho. qaybta lafaha isbitaalka guud ee Muqdisho waa mid ka mid ah qaybaha ugu caansan ee isbitaalka wuuna ka howlgalo Dr. Cilmi Yuusuf ahna khabiir daaweynta iyo kabida lafaha isagoo si gaar ah ugu helan bixinta adeegyada daaweynta iyo qallimada lafaha waxaa ka howlgala dhakhaatiir takhasus leh oo khibrad u leh daaweynta iyo dhaawacyada lafaha xanuunada la xiriira kala goosada iyo xaaladaha kala duwan ee caafimaadka lafaha adeegyada waxaa ka mid ah daaweynta dhaawacyada qalliinada lafaha iyo adeegga kormeerka joogtada ah ee lafaha si loo hubiyo caafimaadka bukaanka qaybta lafaha waxay leedahay qalab casri ah oo loogu talagalay baaritaanada iyo daaweynta jijabka iyo dhaawacyada kala duwan ee soo gaara lafaha si loo dejiyo soo kabashada bukaanka isbitaalka guud ee Muqdisho ee Nasruddin Baarbax daryeelkaagu waa rabitaankeenna